kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Warlelis Media fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan kula nahay subscribe saar markasta waxaan idinku soo gudbinaa war wixii dunida jacayleeda ugu dambeeyay maantana qodobada aan idin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona dekedda magaalada Muqdisho oo maanta shaqadeedu istaagtay khilaaf soo kala dhaxgalay madaxda ugu sarreysay ee dekeddaasi kadib wadooyinka magaalada Muqdisho oo maanta la furay ra'iisul wasaaraha dalka oo ka hadlay arrinkaasi waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa shacabka Soomaaliyeed muddo ka horeysa hal bil ah dhibaatadana wax ka qabay xasan cali khayre oo dalka dibadiisa ka wada kulamo siyaasi ah oo uu ku sameysanayo saaxiibo siyaasadeed ra'iisul wasaare Roble oo beesha caalamka kala hadlay doorashada Soomaaliya ka dhacaysa qaabka ay noqon doonto Umar Filish oo sheegay in munaasabada lagu daahfurayo wadooyinka magaalada Muqdisho mar uu ka hadlay ayuu sheegay in riyadii dadka shacabka ay ku dhaqan magaalada Muqdisho ay rumowday qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan Warlelis Media warka idinkaga imaanaya shaqooyinkii ka socday dekedda magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ay galeen hakad walow markii dambe ay dib u bilowdeen qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ee Muqdisho ku sugan ayaa waxa ay sheegeen in maanta hakad ay gashay qaar ka mid ah shaqadii dekedda magaalada Muqdisho ay qabanaysay ganacsatada ayaa ku dhaqaaqay shaqo joojin ilaa iyo xal laga helayo lacag dheeraad ah oo ay ku soo rogeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo degan gudaha dekedda magaalada Muqdisho lacagtaasi oo ay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya sheegtay in aysan waxba kala soconin ama aysanba wax ka qaban karin ganacsatada aan lala hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ciidanka ammaanka ee ku sugan dekedda Muqdisho ay container kasta ku soo rogeen lacag dhan $150 haddii aan la bixin lacagtaasna aan dekedda laga bixin karinin container kasta waxaa laga rabaa $150 oo dheeraad ah canshuurtana ka dheeri ah dowladda markii aan wax ka weydiinay waxa ay noo sheegeen in al-shabaab lacagta naga qaataan waayihii haddii waxay ganacsatada arrinkan ka cabanaya waxa ay dhaheen haddii dowladda lacag ay naga qaadato shabaabna sidoo kale lacag naga qaadayaan yaana badbaadinaya oo arrinka mustaqbalka ama ganacsiga dadka Soomaaliyeed ka shaqeynaya ciidanka ayaan uga baahanahay in ay xal noo keenaan ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka hadlaya arrinkaasi markii ay madaxdu ku mashquuleen siyaasadda ciidanka ayaa la soo baxay waji cusub waana Bob mana socon doonta arrintan ayuu ku sii daray hadalkiisa dhanka kale ciidanka lagu eedeeyay in ay doonayaan in lacagtan ay qaataan ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ganacsatada looga baahan yahay in si dhaqso ah lacagtaasi ay ku bixiyaan haddii ay ku bixin waayaan waajibka lacagtaasna ay sii dul fuuli karto $30 habeen kasta oo ay ku baaqato lacagtaasi watahay daawadayaal Warlelis Media ayaa naga daawanaysaan fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar wararkaasi dekedana waanu idinla socodsiin doonaa marba marka dambaysa sida ay wax isku bedelaan markana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Roble ayaa maanta waxa uu ka hadlay munaasabad lagu daahfurayay loogana hadlayay wadooyinka magaalada Muqdisho ee la xiray ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in muddo bil ka hor ah oo ka mid ahaa shacabka ku dhibaataysan wadooyinka magaalada Muqdisho ariiriga iyo rafaadkana uu wax ka mari jiray ra'iisul wasaaraha arrinkaasi ka hadlayana waxa uu yiri waxa halkan u yimid in aan indhahayga ku soo arko xaaladda shacabka iyo sida loo fuliyay ballanqaadkii ahaa in aan jidadku u furayno shacabka Soomaaliyeed aniga markaan shakhsi ahaan lafsadeyda ka soo qaado bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan runtii waan garan karaa dibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen muddooyinkii faraha badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen walaalayaal ilaalinta amniga waa mas'uuliyad dhammaanteen wada saaran fariin waxaan rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho degan runtii waad xanuunsateen waad dhibaatooteen carruurtiinii iskool way aadi waayeen qofkiinii xanuunsanaa qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada Muqdisho dhammaan fursad way u heli waayeen ama dib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan
saa darteed waxaa loo baahan yahay idinkoo og xanuunkaas aniga iyo madaxda iga sarrayso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku ugu horreeyo oo ka daqanayna arrintaas inaad nala qaadaan shacabkii Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho haddaad tihiin mas'uuliyadda amniga idinkoo la kaashanayo ciidamada amniga ee qaranka sababtaas saa u leeyahay waxaa weeye dadka dhibka noo geysanayo dadka idin ogoleen inaad horumar gaartaan dadka idin ogoleen inay carruurtiina wax barato inaad isbitaalaadka tagtaan inay hooyooyinka soo umulaan waa dad annaga nagu dhex jiro dadka innaga nagu dhex jiro ee dhallinyarada u badan ee habaabsan ee dulmiga dhexdeenna ka wado waxaan rabaa dad fara ku tirisa ayaa guryahooda ku qarinayo dad fara ku tirisa ayaa ogo meelaha dhibka laga soo ogo nala shaqeeya haddaa shacabka Soomaaliyeed tihiin keligeen mas'uuliyad ma qaadi karno haddaadan idinka nala qaadin hal fari fool ma dhaqdo waxaan idinka codsanayaa annagana dan noogu jirtaa idinkana dan idinkugu jirtaa inaad dadkaas faraha yar ee dhibka nagu hayo aad soo sheegtaan oo aad la wadaagtaan ciidamada amniga ma ahan mustaqbalkeennii carruurteennii hooyooyinkeennii inay dhibkaa u maraan 4 qofood oo nabadiid ah marka idinka ayaan rabaa inaan mas'uuliyaddeeda ku soo wareejiyo wadooyinkii hadda qaar baa la furay qaarna way dhiman yihiin qaarka la furay waxay tusaale u noqonayaan kuwa dhiman in la dhammaystiro sababtoo ah waxaan tijaabinaynaa inay shacabka nala shaqeeyaan oo dhinacayna istaagaan oo noo soo sheegaan dadka dhibka wada si aan uga hortagno wadooyinkana dhammaan magaalada ay nabad u noqoto wadooyinkana loo furo saan u sheegay waa ku soo celinayaa waxaan qiimeyn ku samayn doonaa jidadka kala xiran kuwaas oo aan iyagana furi doono insha Allah markuu ugu soo horeyso ee aan hubino marka ugu horeyso aan hubino inay xasiloon tahay nabadii loo furay waxaan u mahad celinayaa dhammaan ciidamada walaalaha iyaga ee amniga suga oo maalin kasta ku dhaawacmo ku dhinto qaraxyada lala beegsado oo ah inaan u wada danqano oo ah dadkiinii wiilashiinii walaalihiinii gabdhihiinii inaad maxaa la dhahaa aan halkan uga soo jeedinayo mahad ballaaran sida ay uga qayb qaateen halka iyo deganaanta magaalada Muqdisho horena loo sii wado waxaan shacabka ku nool caasimadda ugu mahad celinayaa dulqaadkii ay muujiyeen muddada dheer daawadayaal Warlalis Media ayaa weli naga daawanaysa markana ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa dalka dibadiisa waxa uu ka wadaa kulamo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kulan waxa uu la qaatay magaalada Nairobi kula qaatay qaar kamid ah baarlamaanka wadanka Kenya gaar ahaan kuwa Soomaalida ee kamid ah baarlamaanka wadankaasi Kenya Xasan Cali Khayre oo hore u shaaciyay inuu yahay musharax madaxweyne ayaa ololihiisa doorashada ka bilaabay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya inta badan waxaa ku sugan halkaasi siyaasiyiin Soomaaliyeed ee doonaya inay u tartamaan kursiga ugu sareeya dalka Khayre ayaa kala hadlay mudanayaasha baarlamaanka Kenya xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda dalka Soomaaliya iyo dalka Kenya ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa horay booqasho ugu tagay dalka Djibouti isagoo kala soo kulmay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle daawadayaal waxaad naga daawanaysaan Warlalis Media fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aynu ku leenahay subscribe saar markana ra'iisul wasaare Roble ayaa beesha caalamka la kulmay madaxda ugu sareysa ama safiirada uga sugan Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xuseen Roble ayaa gudoomiyay shir looga hadlayay habsami u socodka hanaanka doorashooyinka iyo dhameystirka dib u eegista dastuurka shirka ayaa lagu bogaadiyay heerarka kala duwan ee uu soo maray hanaanka doorashooyinka iyo sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka ah fulinta qodobada ka soo baxay shirkii madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ee lagu heshiiyay in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsanta waqtigeeda ra'iisul wasaaraha ayaa shirka ku soo bandhigay sida ay uga go'an tahay xukuumaddiisa fulinta qodobadii lagu heshiiyay ee ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho xasiloon isla markaana ay si caadi ah u socon doonaan howlaha dowladda xilliyada doorashada Mr. Roble ayaa xusay in laamaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ay u diyaarsan yihiin dardargelinta fulinta qorshaha amniga codbixiyaasha musharixiinta iyo maamulayaasha doorashooyinka ee ku sugan golaha codbixinta
daawadayaal waxaad weli naga daawanaysaan Warlalis Media fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan subscribe saar gambaleelka furo si aad markasta ula socoto wararka dalka iyo dibaddaba ka dhaca oo aanu halkan idiin soo gudbino markana gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Finish ayaa waxa uu ka hadlay munaasabad lagu daahfurayay wadooyinka magaalada Muqdisho dhagaxaantii taalan looga qaadiyay gudoomiyuhu waxa uu sheegay in dad badan oo shacabka Soomaaliyeed waxay ay ku riyoonayeen ay ruumabeen arrinkaas isagoo ka hadlayana waxa uu yiri ilaahay mahadiis marka ayadoo ra'iisul wasaare cusub Maxamed Xuseen Roble uu joogo inay suura gasho riyadii shacabka Soomaaliyeed ee Banaadir ku nool iyo madaxda qarankuba ay ku riyoonayeen oo ah in dadka iyo madaxduba ay arkaan magaaladan oo nafis heshay oo dhagxaantii laga qaaday waxaan la soconnaa caqabadihii amni ee markaas jiray oo dartood loo dhigay dhagxaha magaalada inaan weli khalil laga noqon oo weli ayaan dhammaystirmin balse haddana iyadoo la fiirinayo laga jawaabayo baahida bulshada ayaa la yidhi intii karaanka ah ee amnigu saamixi karo ha la qaado taas ayaan bogaadinay aad iyo aadna ugu faraxsannahay annagoo dareenkeena iyo dareenka shacabka ka turjumayno walaalayaal ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkan uga soo jeediyo haddii aan leeskaashan suuragalno ma aha wax badan oo aan haminaaho waxaa loo baahan yahay dowladda ayadaa damaanadda amni saaran yahay haddana iyadoo la dadaalayo oo aan waxba lala harin ayaa haddana wax dhacaan waxyaabaha dhacaya wax samada ka soo dhacay ma aha ee waa wax soo dhex maray bulshada helayna fursado ay ku dhici karaan haddii fursadahaas shacabka iyo dowladda oo iskaashaday haddii la helo waxaan aaminsanahay fursadahaasi inaanay jiri karin haddaba walaalayaal kaalinkiina qaata madaxda dowladda ayaguna waxay u taagan yihiin inay kaalinkooda ka qaataan arrintaas waa la qaaday dhagxihii in badan oo ka mid ah inta hartana waa la qaadi doonaa waxayna ku xiran tahay dhammaystirka dhagax qaadistu hadba inta ay amniga wadciga amni ee jira inta uu noo suura geliyo waxaanse go'aankeenu yahay dalka Soomaaliya oo dhan inaan dhagax la'aan iyo amni ku soo dabaal waa tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa Warlalis Media warkii aad ka daawanayseen haddii aad ku cusub tahay bartan subscribe saar